magaalada Buuhoodle ayaa dhawaalaha waxa isku weydaaranayay wufuud fara badan oo qaarkood ay ka tageen Somaliland qaarna ay ka yimaadeen Puntland isla magaaladaasi Buuhoodle waxa hore u soo gaadhay wufuud ka socotay dawladda federaalka ee Soomaaliya haddaba muranka halkaasi ka taagan muxuu ku saabsan yahay kaalintee ayayse ku leeyihiin hogaamiyayaasha dhaqanku warbixinta gaarka waxa inoo haya wariyahayaga Najiib Cabdiweli Cabdixiis koonfurta gobolka Togdheer ee magaalada Burco waxayna u jirtaa 240 kiiloomitir halka magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal ay dhacdo galbeedka gobolka Nugaal waxayna u jirtaa 270 kiiloomitir magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug waxay dhacdaa waqooyiga gobolka Mudug waxayna u jirtaa 200 kiiloomitir magaaladan ayaa waxa ka jira ismaandhaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya dhinacyada Puntland Somaliland Khaatumo oo laba dhinaca iyo Soomaaliya ana mas'uul ka socda dhinaca kale marka uu soo gaaro lagu soo dhaweeyaa maqaam sareeya iyo calanka astaanta waa maamulka uu ka socdo shakhsigaasi iyadoona laga hortago meel ka baxsan magaalada kumanaan ka mid ah dadweynaha ku dhaqan deegaankaas oo ruuxaya caleemo qoyan iyo calanka astaanta waa dhinacaasi ayaa ku soo dhaweeyay deegaanka halka marka dhinaca kalena uu soo gaaro iyana lagu soo dhaweeyo oo loo sameeyo soo dhaweyntii hore oo kala bishan aynu ku guda jirnay ee bilowga ah waxa magaalada Buuhoodle soo gaaray wafdi oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Puntland injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Cami oo ka socda dhinaca Puntland ana dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi ay kaga hortageen meel ka baxsan magaalada iyagoo halkaasi ku soo dhaweeyay daba wafdigii uu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Puntland markii uu soo gaaray Buuhoodle muxuu u sheegay dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi waxaan idinka mahad celinayaa soo dhaweyn goboleed baad na siiseen Allah idin siiyo annagu maanta markaan runta u idiin sheegno waxaanu u nimid laba shay oo keliya waxaanu u nimid calaf iyo ciidan wax kale uma nimin labadaa in laydinka helo haddaad reer Buuhoodle tihiinow baa laydinka doonayaa waqaashiinnii iyo isimadiinina waa kuwa diyaarkooda idinkuna inaad la qaadataan baa laydinka baahan yahay maalintii uu soo gaaray madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyo wafdiga uu hogaaminayay 2 casho kadib waxa isaguna magaalada Buuhoodle gaaray wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta mudane Cabdirashiid Ducaale Qambi waxaana lagaga hortagay meel ka baxsan magaalada iyadoo halkaasi ay kaga hortageen kumanaan ka mid ah dadweynaha ku dhaqan deegaanka oo ruuxaya caleemo qoyan sidii caadada ka ahayd tumayana durbaano iyo calanka Somaliland oo ay ku qaabileen wafdigaasi wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta soo dhaweyn ballaaran oo loo sameeyay kadib waxa uu isaguna dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi kala hadlay goob fagaara waxa uu u sheegay dadweynaha reer Buuhoodle waxaan oran lahaa nabadgelyada aad haysataan iyo wanaagga aad haysataan mid aad daris ku haysataan mid aad sokeeyo ku haysataan iyo mid aad shisheeyo ku haysataanba waxa wanaagsan inaad ku faraadaytaan baan oran lahaa marka intaas aynu kaga nimaadno dhinacyada Puntland iyo Somaliland oo bishan gudaheeda gaaray magaalada Buuhoodle oo mid waliba uu sheeganayo maamulida deegaankaasi ay haddana waxa sidoo kale jirta in muran xoogan oo maamulida deegaankaasina uu ka dhex aloosan yahay dhinacyada Khaatumo Puntland iyo Khaatumo Somaliland oo laba garab u kala jabay oo ay kala hogaaminayaan madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka Khaatumo Mr. Cagalule oo Puntland ku biiray iyo Mr. Cali Khaliif Galeyd oo isaguna ku biiray Somaliland oo mid walibana uu sheeganayo lahaanshaha deegaankaasi una arko inuu isagu yahay ka deegaankaasi ka taliya haddii aynu milicsano madaxweyne ku-xigeenkii hore Khaatumo oo hadda isu haysta inuu yahay madaxweynaha maamulka Khaatumo oo gaadhay magaalada Garowe waxa uu sheegay Puntland موقفك إجاء الأساسا مفهمنا داش هذا Puntland وحنا كده حقيقة واحد عن الكوبي كريم الديار هاي دجان الديار هاي تسوية كيدارشة الديار هاي محافظة فدراليسم الصومالية أو كلام كتبنا الديار هاي مسؤولية الدجان الرسول سراقي يعني
dhinaca kale Professor Cali Khaliif Galeyd oo ahaa madaxweynihii maamulka Khaatumo oo isna hadda heshiis la galay dhinaca Somaliland oo xaflad ka hadlay ayaa isaguna waxa uu sheegay wada hadallada 2 sano ku dhawaada ya annaka iyo mas'uuliyiinta Somaliland noo socday hadaanu Khaatumanahay wada hadalladaasuna meel aad u fiican bay noogu marayaan nooma sadhamaan cidna marti uma nihin cidna magan uma nihin waxaanu nahay dad reer dhulkan Somaliland loo oran jiray leh oo kamida oo waxay mudan tahay dib u dhisidda Somaliland annaka oo miir qabna oo wixii aanu kala dooranaynay aanu aad uga baaraan degnay yaanu aragnay tan mid noo dhaanta inay jirin waxaan rajaynayaa bal markaa dambe insha Allah ama ka horba inaanu hawlahan soo afjaro afkaartan siyaasadeed iyo kala duwanaanshaha fikrada kala fog marka laga yimaado waxay sidoo kale arintaasi saameyn xoogan ku yeelatay madaxdii dhaqanka ee loo igmaday arrimaha dhaqanka iyo xalinta khilaafaadka beelaha dib u heshiisiinta beelaha iyo sidoo kale dhamaynta xaajooyinka beelaha oo geed hoosti ku dhameyn jiray ayaa iyana waxa ay noqdeen dhinacyo la kala safto dhinacyada isku maandhaafsan deegaankaasi waa Puntland iyo Somaliland iyo Khaatumo oo laba garab ah waa kuwan qaar ka mid ah isimada deegaanadaasi oo iyagu qodhoodu afkaar kala geedisan qaba waxaanu cadaynay oo hore u cadaynay oo mar walba cadaynay oo hadda aanu cadaynaynaa inaanaan Somaliland dawlad lahayn wax heshiis la gelin waxaan Soomaalinimo ahaynaa iyo naga dhaxaniyo islaamnimo iyo derisnimo waxaan beesha caalamka u sheegaynaa annagu Puntland baanu wax wada dhisanay annagu Puntland baanu heshiis galay annagu Puntland baanu wax la samaysanay laakiin maamullo aad ka baridaan wasiir hana la siiyo ama ilaahay dukure agaasimo hana la siiyo yaa hareeraha idinka xigay oo magan iyo marti loo ahaaye waxaan idiin wadnaa maamul madaxweynaheedii idinku aad tihiin madaxweyne ku-xigeenkii idinku ah wasiirkii maaliyadda iyo ka difaaca iyo ka arrimaha guduhuba ay reer Khaatumo yihiin meel walba waanu idin geynay oo waxbaad noqon weydeen Khaatumo 1 baa la sameeyay Khaatumo 2 baa la sameeyay Khaatumo 3 baa la sameeyay Boocamo 1 baa la sameeyay SSC baa la sameeyay intaba idinka burburiyay garaadkuna markuu arkay dadkiisii oo burburo kala tagay tisna reerkiisii buu iska aaday haddaad subax gadoodaan oo aad dareertaan annaga waxa weeye ciidamadahan sidoo idinka leh laakiin haddaad dareemi weydo wax alla wixii la qabtaba aad idin ka hortimaadaan annaga nama eedayn kartaan laakiin annagu haddaan wax idiin sheegno adda bari ma dagaalamaysaa saacada qoriina ma soo qaadanaysaa waa maya run baan idin sheegaynaa 100,000 oo qori baa yaala haddii maanta laba reer oo dhulbaantiis ku dhacaan magaalada dhan ba gariiraysa iska saari karnaa roorti nimankan waa maya mar haddeen iska saari karin danteena aan qabsano annaga soo ogaano buurta sayidka oo xabada keeno weydinka ridi kari waayay annagoo Khaatumo war beenyeen isu sheegi inta waxa ay raacday ismaandhaafka dhinaca sheegashada magaaladaasi oo muran xoogan uu ka taagan yahay ayana sidoo kale waxa jirta in mararka qaarkood ay soo gaaraan wafdi ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ka kooban wasiiro iyo xildhibaano iyagoo inta badan shacabka deegaankaasi u sheega in dadkan ay yihiin dad Soomaaliyeed isla markaasna ay yihiin dad kamid ah dawladda federaalka ee Soomaaliya dadka ku dhaqan deegaanadaasi ee durbaanka u tuma hadba cidii u timaada ayaa dad ka aradan adeegyada aasaasiga ah ee bulshada sida caafimaadka waxbarashada biyaha iyo hanaanka iyo haykalka dawladnimo ee dunida inteeda kale ka jaanqaaday iyadoo aan la garan karaynin goorta ay garwaaqsan doonaan dadka deegaanadaasi oo ay garan doonaan waxa danta iyo faa'iidadu ugu jirto isla markaasna kabaya adeegyada ay baahida u qabaan ee ka maqan Abdiweli Abdixiis تلفزيون عالمي Universal